Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawade kusoo dhowo channelka ATI channel oo uga barateen macluumaad guud. Maanta waxaynu ka waramaynaa taariikhda Jack Ma. Jack Ma haddaanad wax badan ka ogeyn daawade maanta wax ka baro. Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaas oo ku guuldareystay inuu ku biiro college-ka tiraba 3 jeer. Ugu dambeyntii wuxuu si dirqiya ku dhaafay imtixaankii kadib markii uu sameeyay diyaarin iyo dadaal caadiga dhaafsan. Wuxuu isku dayay sidoo kale inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo, laakiin badankoodu way diideen inay shaqada geliyaan. Kadib markii uu codsiyo badan oo shaqo ah meelo kala duwan u dirsaday ee loo diiday, ayaa waxa uu go'aansaday inuu shaqo macalinimo ah raadsado. Jack Ma wuxuu helay shaqo macalinimo ah oo uu dhigi jiray luqadda Ingiriiska, isagoo qaadan jiray lacag ka yar amaba mushaar ka yar $10 bishiiba. Ka hor intaanu bilaabin Jack Ma dhigista luqaddan, wuxuu jeclaa inuu horumariyo habka uu ugu hadlayo luqaddan. Waxaanu 45 daqiiqo u kaxaysan jiray maalin kasta baaskiishiisa maalin kasta hotel u dhow oo ay dadka dalxiisayaasha kusoo degi jireen dadka luqadda Ingiriiska u dhashay, si uu ula hadlo luqadda Ingiriiska isaga dhiso. Jack Ma kumuu qanacsanayn shaqadiisa, waxaanu go'aansaday inuu dalka Mareykanka u guuro si uu u helo nolol ka fiican ta uu ku nool yahay. Wuxuu bartay kombiyuutarka ama internetka, aad baanu u jeclaa. Markii dambena wuxuu aasaasay website-ka loo yaqaano Alibaba.com, kaasi oo u saamaxay ganacsiyada iyo shirkadaha ay ku kala iibsadaan ama ay ku kala ganacsadaan iskuna dhaafsadaan alaabaha si online ah. Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalkaasi China. Hantidiisa maanta waxaa lagu qiyaasaa $21 bilyan. Sidoo kale daawada, Jack Ma waxa uu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awoodda badan qaaraddaasi Asia. Maxaynu ka qaadanaa ama ka baranaa taariikhda Jack Ma? Waxaa ka mid ah waxaynu ka baranaa taariikhda Jack Ma inaanad niyad jabin ama aad iska ilaaliso dadka niyad jabiya, si kastoo ay ahaato, caqabad kastoo kaa hor timaadaba. Waxaynu ka qaadanaa daawada inaad go'aan yeelato waxaad jeceshahay waad heli, baadh oo samirkeedana yeelo. Jack Ma wuxuu jeclaa inuu kombiyuutarka ku takhasuso, kadibna wuu ku takhasusay, wuu samray. Markii dambena isagaaba sameeyay website dhan oo Alibaba la yidhaahdo caan baxay. Marka daawada, waxaan kuu rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay ama aad ka faa'iiday. Subscribe ku qabo, like saar, commentiga hoos noogu reebi doonto, share dheh. Intaasan daawada kaa codsanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.